markana kusoo dhawaad warbixinta toddobaadka ee Somali Channel waxaan ku soo qaadanaynaa toddobaadkan orodyahanada Soomaaliyeed ee Samsam Maxamed Faarax oo haatan ku sugan magaalada London ee dalkaas Ingiriiska ayaa waxa ay tababar ku qaadanaysaa halkaasi hadda warbixin ku saabsan nolosha Samsam Maxamed Faarax iyo tababarkeedaba waxa halka inoo soo koobayo wariyaheena Cabdikariin Cali Kaar oo ka tirsan Somali Channel kuna sugan magaalada London kaygiyo kilaygu dhalayo ku dhaqaaq barto ka dhoofi maaye dhankaloon qalaad ku handhaafsan maaye inta aanan dhiman layka dhexgelinay inta aanan dhiman layka dhexgelinay darwaxan ku maraya inaan ku dhintayoon ka dhiciya cadawge Samsam Maxamed Faarax waa gabadhii Soomaaliya uga qayb gashay tartankii Olombikada adduunka ee sanadkan lagu qabtay magaalada London. Halkani waa garoonka White City ee galbeedka magaalada London. Waxaa xilligan oo galab ah ku tababaranaysa Samsam oo si caadi ah maalin kasta u timaada halkan. orodka waxaan bilaabay isboortiga dhan waxaan u soo biiray 2007 laakiin yaraanteedii waxaan qof isboortiga jeclay oo markii aan yaraa waxaan ciyaari jiray kubadda cagta xilliyada qaar xataa waan ordi jiray oo ilmaha xaafadda waa taqaan waxa la dheelaa kuukun iyo maxaa la yiraahdaa dhuumasho xilligaas waan jeclaa orodka laakiin markii aan soo barbaaray waxaan bilaabay basketka dan 2010 ayaan si toos ugu soo biiray orodka ciyaarihii Olombikada ee ka dhacay London waa qayb ka mid ah waxyaabihii ugu weynaa ee soo mara taariikhda nolosha Samsam waxaana sidii ay ii sheegtay wali aan xusuusteeda ka guurin ka qaybgalkeedii tartankaasi Olombikada adduunka والله تاسي وفرحات أدوين أيهد وايو وحامتلي وعلنكي وعيدي وأمدي صوماليات تاسي فرحات أن ولقي إلومين أيين خنيسة وأنا إن هدف أن تيكسنا أن جعلها مرة والباب إن سأوسي مثل إن شاء الله وحن رجينا يا نجس أولمبيك أني وسيدي هذا سيكسي ونكسنا إن مثل هذا علنكي عيدي وقرون وين oo aan la mid ahayn garoomadii ay Samsam arki jirtay waxaan dhihi karnaa waa markii ugu horeysay ee ay nolosheeda aragto garoon baaxadaas leh wallahi taasi waa xamaasad aad u weyn ayay tahay waayo markii aan calanka qaaday waa farxadda kaliya ee dareemayay waa farxad iigu weyneed ayay ahayd waayo habeenka waa habeen farxadeed waayo calankeygii Soomaaliyeed ayaan waxaan ku dhex waday 203 wadan oo ku ahay 204 wadan taana farxad weyn ayay ahayd gabdha matalayay wadamadooda sida Samsam oo kale ayay la oroday Samsam laakiin nasiib darro waxa ay dhammaan gabdhahaasi u muuqdeen kuwa ka khibrad iyo awoodba badan Samsam dadka aan ciyaaraha aqoonin ama dadka yaqaan isku mid ma ahan taasina waa mid yani ka hadal mudan waayo dadka aan la orday waa dad professional ah waa dad dhaqaale la geliyay waa dad intaasoo sano ku soo jiray maxaa la yiraahdaa isboortiga hobbigoodu uu yahay running waxyaabo kale aan qabanin professionkeeda ee u soo shaqatay anigu isboortiga waan jeclahay training waan qaatay laakiin muddo 6 bilood qof training qaadanay iyo qof intaasoo sano orday uu yahay shaqadiisa dhan orod yahay inaan isku meel wada galaynin waa wax iska cad khibrad yarida iyo tababar la'aanta heshay Samsam kama dhigin inay ka niyad jabto orodka oo waxa ay hadda ku tababarataa London oo ay ku nooshahay waana meel aad uga duwan wadooyinkii halista badnaa ee Muqdisho ee ay ku tababaran jirtay run ahaantii wax weyn ayaa u dhaxeeyo waayo Soomaaliya 20 sano ayay burbursaneed garoomo caalami ma jirin jiimam ma aysan jirinin xataa jiimam iska daayay kobiyo orodka loogu talagalay ee lagu ordaayay marka insha Allah aniga weliga isboortiga waan jeclaa oo yaraanteedii ayaan jeclaa haddana waan jeclahay waxaan rajeynayaa heer wanaagsan inaan ka gaaro hadii Ilaahay raali ka noqdo waliba anigoo calankeyga huwan ayaan jeclahay inaan heer ka gaaro insha Allah inkasta oo xiriirada isboortiga caalamku ku bixiyaan Soomaaliya lacag badan tababarka iyo dhismaha ciyaartoyda Soomaalida
haddana uma muuqdaan kuwo dhaqaale lagu bixiyo oo waxa ay marti u noqdeen guuldarro joogto ah. mana jirto dowlad dhinaceeda maamusha ciyaaraha Soomaaliya. Cabdikariin Cali, Somali Channel, London.